idinkaga dhex baxo Ustaad Faysal iyo Ustaad Yaasiin. axmedow haddaan dib ugu laabano su-aasha koowaad ee ah maxaa ku qasbayo waa maxay waqti xaadirkan waxa ku qasbaya inuu maraykanku weeraro iiraan. waxaan ka fiiri karnaa sababta koowaad waxa waaye barnaamijka nukliyeerka iiraan, iyadoo iiraan ay bacriminayso nukliyeerkeeda 60% horumar ay ku sameynayso. sidoo kale waxyaabaha ku qasbaya inuu maraykanku weeraro iiraan waxaa kamid ah kooxaha ay taageerta iiraan oo isku fidinayo gobolka sida kooxda xisbullah iyo kooxda xuutiyiinta oo aan ogeynay dhibaatadii ay u geysteen maraakiibta maraykanka iyo israa'iil dagaalkii socda 12 maalmood, iyadoo kooxa xuutiyiinta ay inta badan ay ka afduubanayeen maraakiibta caalamiga ee marayso marinka baabul mandab ee badda cas. waxyaabahaas ayaa sababaya inuu maraykanku weeraro iiraan. barnaamijka ugu weyn waa inay u hoggaansato iiraan heshiiskii nukliyeerka. haddii aan u laabano su-aasheeni kale oo ayadana dib aan ugu laabano, haddii maraykanku uu dilay Ayatollah Ali Khamenei nidaamka iiraan halkaas miyuu kusoo gabagaboobayaa? iiraan waxay qaadi doontaa wadadii Ciraaq, Syria iyo Libiya. haddii aan meelo badan ka fiirino iyo qoraallo badan oo laga sameeyay arrintan, waxa ay sheegayaan ama waxa ay tibaaxayaan in dilka Ayatollah Ali Khamenei uusan si fudud ku burburi karin iiraan, sababtoo ah iiraan waxaa ka jira nidaam adag oo loo yaqaano kacaanka. sidoo kale waxay leeyihiin ciidamo xoogan oo loo yaqaano ciidamada ilaalada kacaanka oo ka dhisan gudaha iyo dibadda, sababtoo ciidamadaas waxay la falgalaan kooxaha gobolka ka dagaalama iiraan ee taageerta sida xisbullahi oo ka dagaalantay Lubnaan iyo xuutiyiinta oo ka dagaalantay Yemen adig. sidoo kale waxaa jiro koox ay taageerto iiraan oo ka dagaalama Ciraaq iyo Syria. sababahaas daraadeed ayaa aysan ku fududeyn in haddii la dilo Ayatollah Ali Khamenei inuu nidaamka ka jira iiraan oo burburo. mar kale haddii aan dul istaagno su-aashii ahayd maxay ku kala duwan yihiin weerarkii lagu qaaday Ciraaq 2003 ee kan hadda lala damacsan yahay iiraan. dagaalka iiraan waxaa diiradda lagu saarayaa nukliyeerka, gantaalada iyo ciidamada ilaalada kacaanka oo loo yaqaano IRGC oo maraykanka iyo xulafadiisu aqoonsan yihiin urur argagixiso. iiraan waa adag tahay in gabi ahaanba la burburiyo ama laga takhaluso, laakiin dagaal dheer oo gantaale la isku adeegsada ayaa dhici kara waqti badanna socda. sidaa daraadeed iiraan ma fududaan doonto in maalmo ama bilo gudahooda looga takhaluso. haddii xataa dagaal uu noqon doonaa dagaal faraha loogu gubto caalami ah sida ay werinayaan quburada ka faallooda arrimaha dagaalada iyo bariga dhexe. la weeraro haddii ay iiraan xigta marinka Hormuz wuxuu isbedel ku imaan doonaa saliidda caalamka, maxaa yeelay 20% saliidda caalamka oo kamid ah waxay martaa marinka Hormuz. wadamada sida gaarka u saameyn doonto xiritaankaasna waxaa kamid ah wadamada China iyo Japan iyo India. 80% saliidooda kamid ah waxay martaa marinka Hormuz. sidaa daraadeed waxaa dhici doona isbedel caalami ah oo ku yimaada sicirka saliidda caalamka. Assalaamu calaykum. Dii la xiro marinkaas. saaxiib yaal meel kasto